بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أبنائي وبناتي كسر دواذا دروستي أي نقوم قعدرني سفضود كبرو نحوها الدرس الثاني من الدروس النحوية أيين هلكن كبلا بدونا بإذن الله تبارك وتعالى وحين أروسو قادني أبنائي وبناتي كلمة اللغة العربية إنه يقيب سنتو صدح قيبود اسم إيا فعل إيا حرف اسمك إيا فعلك وانسو قيحني تعريف كودي وانسو شيقني وحان كلون سو شيقني علامتها لغو قرتنا وانسو شيقني وحان كلون سو شيقني ficilku inta qaybood ay u qaybsamo inuu saddex qaybood yahay iyo qayb walba iyo tacriifkeedii iyo qeexitaankeedii iyo waxa lagu garto iyo tooyinkoodii oo dhanba maanta waxaynu halka bilaabaynaa marka ismigii aynu soo sheegnay calaamadihiisa imisa qaybood buu u qaybsamaa abnaa'i wa banaati wal ismu yanqasimu ilaa qismayn magacu laba qaybood buu u qaybsamaa mudakkarin مثل علي وقمر ومؤنث مثل عائشة وشمس اسمي وحو قيب سما مقع لب سيدا علي او كلا تسالها علي وحان إذين سيي ولبن مديسو وحسي او وح لدريمي كرو لنا تابان كرو علي إنو نين يهي او لب يهي شكي مله وقمر تسالها كلنا mudakarnimadaasi ma aha mid maxsuus ah oo la taaban karo ee waa mid caqliga un lagu dareemi karo ama macnawi ah mu'anadka Aisha iyo Shamsin ayaan iyadana soo qaadanay Aisha waa tusaale xisi ah ama mithaal xisi ah oo la taaban karo Shamsinna waa tusaale macnawi ah abnaa'i wa banaati waxaynu uga gudbaynaa qayb kale qaybta hadda aynu soo sheegnay hore oo ismigu uu qaybsamo mudakkar iyo mu'annath waa marka la eego magacani cidda uu magaca u yahay ma laba mase waa dhadig marka noociyadeeda la eegayo ayuu ismigu wuxuu u qaybsamaa lab iyo dhadig shaygani waxa uu magaca u yahay tiradiisa markii la eegayo ma single ba ma laba ma saddex iyo wax ka badan oo jamc la yiraahdaa markii la yiraahdana ismigu wuxuu u qaybsamaa mufrad iyo muthanna iyo jamac ayuu u qaybsamaa ila mufradin wa muthanna iyo wa jam'in ayuu u qaybsamaa abnaa'i wa banaati waxbana ha ku wareerina insha Allah marka la leeyahay tusaale aan in badan idin sheegay baan ku soo celinayaa marka la leeyahay ismiga marka loo eego qofka loogu yeerayo lab iyo dhadig baa loo qaybiyaa ama mudakkar iyo mu'annath marna markii la leeyahay maya wuxuu qaybsamaa mufrad iyo muthanna iyo jamac waxay la mid tahay reer meel degan oo family ah in lagu yiraahdo reerku muxuu imisu ka kooban yahay mar waxa la oran karaa markii asalka iyo farca la eegayo waxa la oran karaa reerku wuxuu ka kooban yahay waalid iyo caruur waa asalka iyo farca markii la eego marka la eegayo reerkani imisa dumar imisa rag ahna waxaa la oran karaa maya reerku wuxuu ka kooban yahay lab iyo dhadig wiilal iyo gabdho rag iyo dumar ayuu ka kooban yahay ayaa la oran karaa marka taqsiimaadku haddii ay dhowr jeer iyadoo wax la qaybinayo aad aragto waxaad markiiba u fiirsataa waxa loo jeedo shaygani marka la qaybinayo labadiiba marka inay sax yihiin ayaa ku soo baxaysa mufrad iyo muthanna iyo jamac ayaa markii wa min haythu al-adad yanqasimu al-ismu ila 3 saddex qaybood buu u qaybsamaa markii xagga tirada shaygan lagu magacaabayo la eego saddex qaybood buu u qaybsamaa mufradin iyo wa muthanna iyo wa jam'in ayuu u qaybsamaa mufradku mithaalkiisu waa faadilin muthannaha mithaalkiisuna waa faadilani aw faadilayni jam'a mithaalkiisuna waa فاضلون أما فاضلات أما فضلاء وجمع تكسيره مفرد كمركي نشيغي إني فاضلين بس نري هذا هو مفرد كاسي وامد لبقى فاضلة ونقون كرا
مثناها مركينو مرينينا فاضلان يا فاضلين بين نري محينو لبدا وشيغني فاضلان ومركا وغدن يحي فاضلين ومركا اما او كردغن يا اما هوس دغن يحي جمع مركينو مريني وحينو نري فاضلون يا فاضلات يا فضلاء وحاوي جمع يا صدح قيبون نقون دون جمع مذكر السالم مثال كسوا فاضلون جمع مؤنث السالم مثال كسوا فاضلات جمع التكسير مثال كسنا وفضلاء وإن أتجدونا بإذن الله تبارك وتعالى أبنائي وبناتي وحين هل كان كجلينا التعريف قيحد ير وأنه قيحينه مفرد محل هذا مثنى محل هذا جمع محل هذا iyo tusaari hadaan idin siiyay oo soo noqnoqonayo iyagana waxaan u soo celcelinayna waa in qalbigiinana uu si fiican u dago carabkiinana uu la qabsado mufrad maxaa la yiraahdaa al mufradu huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin wa magaca ku tusiya hal qof lab iyo dhadig ku doonaado waahid waa dhad waa lab wahidatin waa dhadig mithlu fadilin aw fadilatin fadilin waa lab فاضلة وددك فاضل وواحد فاضلة وواحدة المثنى محل هذا اسمه ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون مثل فاضلان أو فاضلين أي اسمه نقول مثنى وحال هذا وحي كتسي لبأ أما لبأ ددك أو مفرد كودي لغو كردية لغو زيادية ألف إيا النون وانا مركا وقدن يهي مثالكنا وفاضلاني أما وحالو زيادية يا إيا النون وانا مركا وأما كردغن يا أما هوس دغن يا مثال كيدونا وفاضلين ويه أبنائي وبناتي جمع محال هذا جمع وحال هذا ما اسم با جمع هذا دلت سي على أكثر من اثنين أو اثنتين جمع وحال هذا وحي كتسيه magac ka badan labo lab ah ama laba dhadig ah bitagyirin doorsoonna lala qabo doorsoonna uu ku dheehan yahay weeye isbedelkaasoo ku yimaado fi mufradihi jamca mufradkiisi jamcu u fiirso jamcu muthannu leeyahay oo mufrad buu leeyahay yani marka hore kow mid buu ahaa labu noqday kadib buu jamc noqday marka mufradkii oo isbedel ku dhacay oo laba iyo wixii ka badan ku laba ka badan laba maaha laba waa muthanna laba ka badan ku tusiya ayaa waxa la yiraahdaa jamc mithaalku waa maxay faadiluna aw faadilina labadaaba waa jamc mudhakkar salim oo marka faadilun buu ahaa mufradkii wow iyo nuun baa lagu daray oo faadiluna la yiri waa jamc marka waa kuwii fadliga lahaa weeye oo badan oo lab ah oo godan waliba oo fi maxalli rafcin yaala i'raabka markaynu marayna ayaynu si dhaba u ogaan doonaa ama faahfaahin doonaa aw faadilina wa isla jamc mudhakkar salim wa jamcu faadilin ayaa waxa lagu ziyaadiyay ya iyo nuun waana marka uu jamc mudhakkarka salimka ama godan yahay ama kor dhigan yahay ama uu hoos dhigan yahay markuu godan yahay ma aha waa kor dhiga iyo hoos dhiga marka waa kuwii iyagana fadliga lahaa ayuu noqonayaa aw ama se فضلاء وجمع تكسير كي مفرد كي با فاضل أها فاضل بو أها مركاسو فضلاء النقضي مفرد كي سي دورسون با كو دعيوس ببدلي مرك هل كان لبدا هره يميد كان سو سocdaba مفرد كي waa un la ziyaadiyay moogiye wax isbedela kuma dhicin haykalkii mufradka waa jooga aw ama se fadilatin wa jam'i muannadka salimka aha isna waa jam'u fadilin oo ألف إيا تأبى لغو زيادية وانا جمع كتوسينيا قبل إنيهين قبله فضل الهاوية وهكذا أبنائي وبناتي وحين هل كان مركا كجلينا أقسام الجمع جمع قيبه سا وإمسا الله بقيبوت مركي الله سو قابيو جمع تكسير جمع لتشبيي ومفرد كيسبا اسبدل كل عيوية مثال كيسونا وفضلاء جمع تصحيحنا وجمع فيو oo mufradkiisi uusan isbedel ku dhicin laakiin la ziyaadiyay oo ama alif iyo ta baa lagu ziyaadiyo jamcu muannath salim uu noqday ama waw iyo nuun baa lagu ziyaadiyay ama ya iyo nuun oo jamc mudhakkar oo salim ah mithaalkuna waxa weeye faadiluna
iyo faadilaatin weeye mithaalkiisii labadaa qaybood weeye jamaca marka hore guud ahaan jamcu taksiir iyo jamcu tasriim bal jamcu taksiirka aynu qeexno jamcu taksiir maxaa la yidhaahdaa wahuwa jamcu taksiirka maa tagayara kan uu isbedelay ee uu doorsoomay baa la yidhahdaa fiihi isaga gudihiisa binaau mufradihi qaab dhismeedkii mufradkiisa midka uu isbedelay ayaa jamcu taksiir la yidhaahdaa u fiirsa hadda qaab dhismeedka mufradka ayaa lagu yidhi mufradkii haddaynu soo qaadano matalan faadil baynu soo miithaalinayna in badan mufradkii waa faadil qaab dhismeedka mufradku waa inta xaraf ee uu ka kooban yahay oo fa'da iyo alifta iyo daadkaas iyo laamkaas ah iyo xaraf kasta meesha uu ka xarakaysan yahay faadilin matalan xaraf walba inta xaraf ee uu ka kooban yahay tir ahaan intuu ka kooban yahay iyo xarafka hore iyo xarafka labaad iyo xarafka saddexaad iyo xarafka kaleba meesha uu ka xarakaysan yahay haykalka mufradka iyo qaab dhismeedka mufradka kaasaa la yidhaahdaa qaab dhismeedka hadduu isbedelo xuruuftii baa yaraatay xuruuftii baa badatay xuruuftii baa waxay xarakadooda isbedeshay markaasuu jamcu taksiir uu noqonayaa mithaalka aynu qabsanno faadilin buu ahaa mufradkii fudalaa buu noqday waa jamcu taksiir oo maxaan ku garanayaa fudalaa kuwii fadliga lahaa mufradkiina muxuu ahaa faadilin kii fadliga lahaa waxaa isbedelay xarakadii baa isbedeshay xuruuftiina way isbedeleen marka jamcu taksiir inuu yahay kan shaki kuma jiro waa jamcu faadilin wa kutubin waa jamcu kitaabin wa aqlaamin waa jamcu qalamin iyaguna waxaa weeye wahaakada dawaalayka oo hadda tusaalooyinkii ama faahfaahintii aan faadilin iyo fudalaa ka bixinay ayuunbaad iyagana u eegaysaa abnaa'i wa banaatii وجمع التصحيح جمع فيو قسمان لبا قيبود وي جمع مذكر سالم هي جمع المؤنث السالم المذكر السالم بينكم بالله بين جمع هذا هرت هذه اللي هذا جمع المذكر السالمي صدح كلمات بكم جمع المذكر السالم كلمه هاسنا معنى يكون فديان جمع مركي لو يراهدو مثنى iyo mufrad ayaa meesha ka baxaya المذكر markii lagu yiraahdaana المذكري markii lagu yiraahdaana jamci mu'anadka ahaa ayaa meesha ka baxaya as-salimi hadii lagu yiraahdana wuu nabad galay weeye oo qaab dhismeedkii mufradkiisa nabad galay weeye oo lama jajabinin ama isba bedelin meesha marka waxaa ka baxaya si automatic ah uga baxaya jamcu taksiirkii mithaalkii qabso faadiluna aw faadilina waa jamci mudakkarka saalimka ahaa oo aynu in badan soo sheegnay qeexitaankiisina qabso hana la xifdiyo insha Allah وهو جمع مذكر كي سالمك من كل اسم مقع كستال يراهدا زاد الزيادية في مفرده مفرد كي سواو ونون وأي النون لغو زيادية وانا مركا وقضية إن بدنا وانكو على علينا فاضلون وهي مثالك أو أمسا وحال لغو زيادية يأي النون وانا مركو أما كور لغاية أما هوس لغاية مثالك سنة وفاضلين جمع مذكر كي سالم كان ماشا سنة وقبحنا مفرد كستا أو جمع كتوسية oo wow iyo alif lagu iyo wow iyo nuun lagu ziyaadiyay ama ya iyo nuun xaqana uu mufradkiisii qaab dhismeedkiisii nabad galay waxa la yiraahdaa jam'ul mudhakkar salim baa la yiraahdaa jam'ul muannath salim jama' mufrad iyo muthanna meesha ka baxay al muannath mufrad mudhakkarkii baa meesha ka baxay waa dhadig as-salimna waxa weeye jam'u taksiirkii baa meesha ka baxay amthiladii qabso faadilatin iyo wa mujtahidatin way mithaalkiisu ومركه هروج فاضل بوها كدمنا ألف يتابع لقدره فاضلات قبله فضل قالها بالنقضي مجتهدة بوها أما فاضلة بمركه راها فاضلات بالنقضي مجتهدة قبله دذلك بدنيد مجتهدات قبله دذلك بدنا مركه تأذي مركه را تأجابت مركه را بمفرد كود شرتي إن ماشي حدا ما تعله محايا لي جمع وحلقة بيننا يا مذكركii baa laga binaynaya oo faadilin aha marka taada iyada ku wareerin laakiin waa mufradkii oo faadilin aha oo alif iyo ta lagu ziyaadiyay ama mujtahidin aha oo mujtahidatin la yiri weeye qeexitaankiisuna waxa weeye وهو من كل اسم زاد في مفرده ألف وياء ومقع كستا ومفردكيسا لغو داري ألف إيا تاء لغو داري أيا وحا ليراهدا جمع المؤنث السالم halkaas ayaynu ku joojinaynaa Allah waxaan ka baryaynaa subhanahu wa azza wa jalla inuu aniga iyo idinkaba nagu irsaaqo al-ilm an-nafi'a wal-amal as-salih innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.